madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Barack Obama ayaa eedeyn kulula waxa uu u jeediyey Donald Trump madaxweynaha xilka kasii degaya ee dalkaasi Mareykanka dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhacay Koongareeska waddankaasi Mareykanka waxa uu sheegay waa mid laga naxo oo laga yaqyaqo waxa sidoo kale uu sheegay in aysan ahayn tani mid aysan filaynin xisbiga jamhuuriga ayaa waxa ay diidan yihiin wararka ku saabsan in Koongareeska si rasmi ah ugu dhawaaqdo xaqiiqda doorashooyinkii dhacay ee lagu doortay Joe Biden oo isagu farqi badan oo dhinaca codadka uga guuleystay Donald Trump waxaa jirta eedeyn kulul oo imaanaysa oo ka dhana xisbiga jamhuuriga McGregor oo isagu sharci yaqaan ah ayaa waxa uu sheegay wixii ka dhacay waddankaasi Mareykanka ay soo xusuusinayso waxyaabaha ka dhaca wadamada yaryar ee hadda soo koraya oo cawaaqib xumo iyo sidoo kale foodo ay ka dhalan karto afhayeen u hadashay Melania Trump ayaa waxa ay shaaci ka qaaday in ay Stephen Grisham ay iyadu xilkeedii iska dhiibtay dhinaca kale madaxweynihii hore ee waddankaasi Mareykanka George W. Bush ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu si kulula ugu cambaareeyay muuqaalkii foodada ahaa ee lagula kacay xarunta Capitol ee Koongareeska waddanka Mareykanka madaxweynaha oo isagu ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa waxa uu sheegay in wixii dhacay uu aad uga naxay sidoo kale waxa uu tilmaamay in hogaamiyaasha siyaasiyiinta loo baahan yahay in xaaladda ay dejiyaan waxuu si kulula uu u cambaareeyay madaxweynaha hadda xilka haya Donald Trump iyo sidoo kale kuwa uu sheegay in ay taageerayaan oo la taliyaashiisi ka mid ah dhinaca kale booliska dalkaasi Mareykanka ayaa 13 qof waxa ay gacanta ay ku dhigeen oo loo haystaa dhacdooyinkii rabshadaha watay ee ka dhacay gudaha xarunta Koongareeska waddanka Mareykanka taliyaha booliska ee caasimadda Washington Robert County ayaa waxa uu sheegay dhammaan dadkii la xiray ay ahaayeen kuwa dibadda joogay waxa sidoo kale uu sheegay in boolisku ay daweynayaan dad iyagu dhaawac uu ka soo gaaray rabshadahaasi ka dhacay afafka hore ee Koongareeska Mareykanka ayna jireen kuwa gudaha u galay aqalka Koongareeska baraha Twitterka iyo sidoo kale YouTube ayaa iyagu waxa ay xayiraada ay ku soo rogeen barta uu ku leeyahay Trump YouTube-na waxa uu muuqaal uu soo saaray Trump uu ka saaray barihiisa barta Twitterka ayaa gabi ahaanba ama muddo 12 saacadood waxa ay joojisay in uusan Trump wax ku qori karin bartiisa Twitterka waxa ay ku hanjabtay Twitter in ay ka xiri doonto haddii madaxweynuhu uu sii wado in uu ku xadgudbo sharciyada u yaal barta Twitterka YouTube Facebook ayaa iyagu waxa ay durba ay ka saareen muuqaal uu Trump iska soo duubay uu soo dhigay labadaasi barood oo uu ku sheegayo in doorashadii ka dhacday dalkaasi Mareykanka ay ahayd mid lagu shubtay madaxa golaha baarlamaanka ee dalkaasi Mareykanka Nancy Pelosi ayaa waxa ay sheegtay in Koongareeska uu ambaqaadi doono howlaha horyaala ee ku saabsan in ay ku dhawaaqaan natiijada rasmiga ee doorashadii dhacday bishii November kadib markii xarunta Koongareeska ee Capitol laga saaray taageerayaashii Trump waxaa soconaysa ayaa la yiri ku dhawaaqista madaxweynaha guusha gaaray ee dalkaasi Mareykanka Joe Biden madaxweynaha dalka Mareykanka ee hadda isagu xilka ka degaya ayaa lagu eedeeyay in uu gadaal uu ka soo xoojinayay boqolaal taageerayaashiisa oo iyagu si xoog ah ku galay aqalka Koongareeska waddankaasi Mareykanka haweeney ayaa lagu dilay xaaladaasi foodada ahayd ayaa la yiri inta aysan bilaabanin rabshado gacan ka hadal ah Trumpna waxaa la tilmaamay in isagu uu ugu baaqay markii dambe dadku in ay rabshadaha ay joojiyaan xasiloonida iyo nabadgelyada la ilaaliyo dalkaasi Mareykanka dadkaasi si kulul u galay ayaa sidoo kale waxa ay la kulmeen eedeyn kulul oo wadamada caalamka uga timid wasiirka arrimaha dibadda waddanka Canada Francois Philip ayaa waxa uu sheegay wixii ka dhacay Koongareeska waddankaasi Mareykanka ee Canada si aad ah ay uga xun tahay waxa uu sheegay in loo baahan yahay in xilka si nabadgelyo la isugu wareejiyo oo dimuqraadiyadda ku salaysan bartiisa Twitterka waxa uu soo dhigay
waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhacay dalkaasi maraykanka in dareen xun ay ku reebtay shacabka iyo madaxda waddankaasi Canada ay aad ay uga xun yihiin. dhinacii wasaaradda arrimaha dibadda Faransiiska war ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in wixii dhacay uu ahaa weerar khatar ku ah dimuqraadiyadda dalkaasi Maraykanka.